من يسألني فأعطيه. يا حليم يا عظيم يا كريم. أين الرفعة للدين؟ أين الحرص على نصرة المسلمين؟ اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. فقال الله تعالى له: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. walaaladeen ismahaan faarax, cabdirasaaq xaaji, khadar axmed, luul xaaji, saxwa miidiya, wacan maxamed waxay naga soo codsadeen inaynu soo qaadanno maxamed alcurayfi. maxamed alcurayfi waxa uu ka mid yahay culimada ugu caansan caalam alislaami iyo waddanka sacuudigaba ee looguna hadal haynta badnaa. insha allahu tacaala waxaynu soo qaadan doonaa taariikhdiisa oo kooban, caannimadii iyo shuhrada iyo waxyaabaha ay ku keentay, xidhitaankii la xidhay iyo sababaha loo xidhay, iyo aakhirkii halka uu ku dambeeyey sheekh maxamed alcurayfi. soo dhowaada, baaraka allahu fiikum. intaynaan taariikhda sheekh maxamed alcurayfi u gelin, walaaladeen ayaa xalqadii hore aynu kaga warramaynay khaalid arashid waxay nagaga soo noqotay su-aalo. insha allahu tacaala su-aalahaasi ayaynu ka jawaabaynaa. walaalkeen kamaal xasan waxa uu yidhi wuu dhintay sheekhu, allaha u naxariisto. cabdirashiid maxamed isaguna wuxuu yidhi walaal sheekh khaalid rashid mar hore ayuu dhintay, allah ha ka waraabiyo jannatulfirdowsa. cabdirasaaq aadan isaguna wuxuu yidhi sheekhu weli ma nool yahay. the ideal muslim wuxuu yidhi akhii sheekhu sow ma noola. haddaba su-aashaasi oo ah sheekhu ma nool yahay mise wuu dhintay. وفاة الشيخ خالد الراشد. waxaa jira warar been abuur ah oo faafay 2024 taasoo la leeyahay waxaa dhintay sheekh khaalid arashid, oo markaasi janaaso ay dad fara badan ka soo qayb galeenna markaasi lasoo dhigayo. warkaasi waa war been ah. ilo rasmiya oo shaaciyey in sheekh khaalid arashid uu dhintay ma jiraan. ilo lagu kalsoon yahay oo sheegaya inuu sheekhu dhintayna ma jiraan. laakiin ilaha qaar oo lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayaan inuu sheekh khaalid arashid uu nool yahay oo aanu dhiman. waxaa ka mid ah ilahaasi facebooka sheekh khaalid arashid oo ay ku xidhan yihiin markaasi 2 milyan oo qof ayaa wuxuu soo dhigayaa oo leeyahay sheekh khaalid arashid wuu nool yahay manuu dhiman. warkaa la sheegayana waa war been ah. sidoo kale isna waxaa caddeeyey markaasi sheekha falastiiniga ah ee la yidhaahdo maxamuud xasanaad oo isaguna video soo duubay oo leh warkaasi waa been, sheekhu wuu nool yahay. sidaasi oo kale ilo rasmiya oo sacuudiga ka soo baxay oo sheegaya sheekhu inuu dhintay ma jiraan. sidoo kale qoyska sheekhuna may sheegin inuu sheekhi geeriyooday. markaa sida cad ama xaqiiqda ah waxa weeyaan inuu sheekh khaalid arashid uu nool yahay. allah subxaanahu wa tacaala cimriga ha u dheereeyo, jeelkana allah ka soo saaro. sheekh maxamed alcurayfi waxa uu ka soo jeedaa qabiilada la yidhaahdo alkhaalidiya, taasi oo ku abtirsata saxaabiga jaliilka ah ee khaalid ibnulwaliid radia allahu canhu. sheekhu waxa uu dhashay 15 julaay 1970. waxa uu ku dhashay magaalada la yidhaahdo quweyciya, taasi oo ka mid ah deegaamada magaalada riyaad. sheekhu waxa uu yaraantiisii ku barbaaray magaalada damaam, halkaasi oo aabihii ka shaqayn jiray. dugsigii hoose iyo kii dhexeba waxa uu ka dhigtay magaalada damaam. sheekhu xifdiga qur'aanka kariimka wuxuu bilaabay isagoo markaasi sekandariga ku jira. xifdiga qur'aankana wuxuu dhameeyey isagoo jaamacadda ku jira. sheekhu waxa uu galay kuliyadda usuuluddiin jaamacadda alimaam maxamed binu sacuud alislaamiya ee ku taalla magaalada riyaad. waxaanu digrii ka qaatay 1991. isla iyada ayuunbuu mar dambe ka qaatay markaasi masterka iyo dictoraa. sheekhu waxa uu qaatay ijaasada qur'aanka iyo xadiidka. culimada uu ijaasada qur'aanka ka qaatay waxaa ka mid ah sheekha yamaniga ah ee la yidhaahdo yaxya alxulayli iyo sheekha masriga ee la yidhaahdo axmed ciisa almacsaraawi. ijaasada xadiidka waxa uu ka qaatay الشيخ القاضي المحدث إسماعيل بن علي الأكوع.
والشيخ القاضي المحدث محمد بن إسماعيل العمراني والشيخ المسند المغربي محمد بن أمين culimadaasina waxa uu ka qaatay ijaazada xadiidka sheekhu waxa uu ka dhigtay casharo culimada waaweyn ee wadanka Sacuudiga markaasi duruus kala googo'an ama kala duduwan waxaana ka mid ah casharada uu ka dhigtay tafsiirka iyo fiqiga waxa uu ka dhigtay Sheekh Ibn Baas raxmatullaahi calayhi 1413 ilaa 1419 sidoo kale waxa uu ka dhigtay fiqiga iyo tawxiidka Sheekh Cabdullah ibn Jibriin 1413 ilaa 1421 waxa uu sidoo kale fiqiga ka dhigtay Sheekh Cabdiraxmaan bin Naasir al-Barak 1415 ilaa 1416 sheekhu waxa uu soo qabtay shaqooyin dhowr ah oo kala duwan shaqooyinka uu soo qabtay waxaa ka mid ah inuu noqday markaasi la taliyaha xagga sharciga iyo arrimaha diinta ciidanka Sacuudiga 1992 waxa uu ka mid noqday xubin hay'adda waxbarashada ee jaamacadda Al-Malik Sacuud 1993 waxa uu noqday imaam iyo khatiib masaajida dhowr ah oo kala duwan intii u dhaxaysay 1993 ilaa 2006 sidoo kale waxa uu ka mid noqday xubin hay'ado caalami ah oo dhowr ah oo kala duwan sheekhu waxa uu qoray kutub fara badan kutubta uu qoray waxaa ka mid ah kitaabka la yiraahdo Nihayatul Aalam kitaabkaasi oo kaga warramayo calaamadaha saacadda waxaana la daabacay 1 milyan oo tabcadood waxaana loo turjumay 6 luqadood waxaa kaloo ka mid ah kitaabka la yiraahdo Istamtic bixayaatik 6 sano gudahood waxaa la sameeyay 30 nusxadood waxaana loo turjumay markaasi 11 luqadood haddaba Sheekh Maxamed Al-Curayfi usluubka iyo qaabka uu wacdiga u jeedinayo ayaa noqday mid dadka aad u soo jiita oo aad u saameeya inta badanna waxa uu soo qaataa qisooyin kadibna nusuusta ayuu soo qaataa waxa uu aad u saameeyay markaasi dhalinyartii iyo dadkii oo aad u jeclaaday sheekhu waxa uu dacwadda iyo khayrka u adeegsaday miidiyaha oo markaasi barnaamijyada uu qabanayo oo aad looga duubo muxaadaraadkiisa iyo markaasi khudabtiisa oo dhammaantood laga duubo sheekhu waxa uu ka mid noqday culimada loogu hadalhaynta badan yahay ee ugu caansan markaasi caalam al-islaami iyo wadanka Sacuudiga markii ay soo baxeen Twitterka iyo Facebooka sheekhu waxa uu ka mid ahaa culimadii halkaasi u adeegsatay inay dacwadda iyo khayrka ka faafiso maadaama uu sheekhu caan yahay waxa ay keentay markaasi tallaabo wala uu qaado iyo ficil wala uu sameeyaba in markaasi dhowr dhinac loo turjumo dadka jeceli xagga khayrka ay ula kacaan dadka xaasidaya ee ka soo horjeedana xagga xumaanta ay ula kacaan Twitterkiisa waxa ku xidhmay 19 milyan oo qof markaasi waxa uu soo dhigo hadalka uu soo dhigo ama fiidiyowga uu soo dhiga wuxuu noqdaa loogu hadalhaynta badan yahay sheekhu arrinka muxuu uga jeedaa sida maxaa uu yiri markaasi wuxuu noqdaa mid aad u hadalhayn badan haddaba qanaadka la yiraahdo Al-Arabiya iyo MBC-da oo qaybo 1 iyo 2 iyo 3 leh ayaa sheekha waxay ku qaadeen weerar aad u culus sababta weerarkaasi keentayna waxa weeye inuu sheekhu ka digay markaasi qanaadka Al-Arabiya oo uu ku tilmaamay inay u shaqayso sida yuhuudda oo kale هي تنصر كثير من التوجهات الصهيونية waraysi uu bixiyayna waxa uu ku sheegay markaasi inay markaasi ay buunbuuniyaan oo ay weyneeyaan oo ay faafiyaan khaladaadka ka dhaca dadka islaamka qanaadka MBC3 ee markaasi ciyaalkuna inay soo daayaan waxyaabo dhaawacaya ilmaha yar ee daawanaya caqiidadiisa taasi oo keentay iyaguna inay weerar sheekha ku soo qaadaan oo markaasi khudabta u jeediyo ama kelmadda uu yiraahdaba ay taqaariir ka diyaariyaan oo ay xagga xun u fasiraan Sheekh Maxamed Al-Curayfi markii ugu horeysay waxa la xidhay 2013 sababta loo xidhayna waa inuu dhaliilay oo uu ka soo horjeestay markaasi inqilaabkii ka dhacay wadanka Masar ee lagu inqilaabay madaxweynihii ay shacabku doorteen ee Maxamed Al-Mursi arrinkaasi ayaa sheekha lagu xidhay dhowr cisho markuu xidhnaana waxa laga saxeexay inaanu dib uga hadal arrimaha Masar sidaasi ayuu sheekhu ku soo baxay isla haddana sanadkii 2014 ayaa sheekha la xidhay waxaana loo xidhay dhaliil uu soo jeediyay markaasi tareenkii xajka kaasi oo markaasi uu xidhnaa haddana 2 bilood oo haddana la soo daayay 2018 page-ka ay leeyihiin qolada la yiraahdo Mu'taqali Ar-Ra'yi ayaa waxay ku sheegeen in sheekha markaasi laga joojiyay khudbadda iyo dhaqdhaqaaq dacwadeed sidoo kale waxay sheegeen in boggiisii Twitterka oo ay ku xidhnaayeen 19 milyanna markaasi la masaxay oo hawada laga saaray
sidoo kale 2018 waxaa la xidhay inankiisa Cabdiraxmaan muddo 3 sano ayuu xidhnaa kadib markii dambe ayaa la soo daayay. Haddaba sheekha waxa ugu dambeysay wuxuu soo dhigo ama hadal uu sameeyo 2019 oo markaasi boggiisa Facebook oo ay ku xidhan yihiin 22 milyan oo uu soo dhigay markaasi fadliga ay Ramadaantu leedahay. Markaasi ayaa ugu dambeysay hadal iyo dhaqdhaqaaq dambe sheekha ilaa imika lama oga meel uu ku sugan yahay, inuu xidhan yahay, inuu nool yahay iyo inuu jeelasha Sacuudiga ku jiro. Laakiin ilaha qaar ayaa waxay sheegayaan in sheekhu uu ku jiro markaasi xabsi guri oo markaasi dhaqdhaqaaqiisa iyo hadalladiisa iyo xarakada uu sameeyoba sheekha lala socdo oo uu halkaasi nolol adag uu ku sugan yahay. Allah subxaanahu wa tacaala haddii sheekha dulmi lagu haysto, Allah subxaanahu wa tacaala ha ka sii daayo, xorriyadiisana Allah uu soo celiyo. kuwa dhaalimiinta ah ee dadka muslimiinta ah iyo culimada markaasi dhibaatada ku haya ee dulminayana Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha jabiyo. إلهي مسلمين تنصر هسيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.